gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada badeecooyinka Soomaaliland Cabdiwaasac Maxamed oo ay weheliyeen qaar ka mid ah agaasimo waaxyada kala duwan ee hay'addaasi oo ku sugan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa runmadii hore saaka waxa ay kormeer ku soo mareen badiba xafiisyada hay'addu ku leedahay degmada Berbera waxaana kormeerka mas'uuliyiintan ay ku wehelinayay isuduwaha hay'addan dhowrista tayada Sahal Cali Warsame iyo sidoo kale Commissioner Sofi oo sarkaal ka tirsan hay'addaasi sidoo kale wafdigani waxay kulamo gooni la qaateen maamulaha kastamka Berbera iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Ibraahim waxaana kamid ah goobaha wafdigani kormeerka ay ku tageen dhismaha laabka hay'adda iyo sidoo kale laabka shidaalka waxaana sidoo kale mid dul istaageen hawl maalmeedka shaqo ee shaqaalaha gacanta ku hayaan kadib kormeerkani markii uu soo ilaaday waxay halkaasi warbixin kaga dhageysteen isuduwaha hay'adda dhowrista Sahal Cali iyo sidoo kale maamulaha kastamka Berbera Cabdiraxmaan Ciro ugu dambeynna waxay kulamo la qaateen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maxamuud Ibraahim saaka markaan isu nimi runtii waxa weeye horta hadalkii maxamed suufa dhameeyey komishineerka dhameeyey intii goobadeen marnay shaqadana waa wada taabsinay dhammaan sida shaqadu socotay xafiiskana waa xafiiska ugu weyn ee nala shaqeeya waxyaabaha ugu weyn authority aanu ka helno marka weli waxaanu ku dhex jirnaa shaqadii gudoomiye ku-xigeen baanu ku leenahay shaqadii xafiiska uu qaban jiray intii aan laamaan wada shaqayn jirnay weliba halka waxaa ka maqan oo aan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa waxa weeye kastamka marka laga tago cidda authority-ga awoodda noo qabata waxa weeye ciidanka tubataarayda ama ciidanka loo yaqaano ilaalada cashuuraha maamulaha kastamka Berbera oo runtii aniga iyo isuduwaha iyo tiimka inspectionka noogu jooga gobolka Saaxilba naga soo martay caqabado badan oo ku saabsanaa in ashyaada la cashuurayo loo eego lacag ee aan loo eegin quality-geeda maanta Cabdiraxmaan wuxuu naga marag furay annaguna indhahayaga ku soo aragnay inaanay dhicin muddooyinkii ugu dambeeyay in lacag la eego ee la eegayay quality control-ka qaybta checking ee kastamka Berbera markuu discharge sameeyo containerka la dejiyo qaybta checking ee Berbera ayaa furi doonta containerka data marka ay furayaan waxa laga maarmaan in jawaab quality control si u xaqiijiyaan quality-ga alaabta run ahaantii waxaan halka rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha waxaan rabaa inaan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland inaan u sheego in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka go'an tahay in ma taqaana in la helo cunto caafimaad qabta in la helo dawo tayo leh iyo cunto tayo leh waxaad ka garataa laabka milyaniska ku kacay oo madaxweynuhu dhagax dhigay isagoo ma taqaana sanadba aan joogin inuu dhagax dhigay run ahaantii waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantahay mahadnaqa waxa isaguna mudan oo aan isleeyahay halkay taagnayd wuu sii laba jibaaray madaxweynaha maanta jooga Muuse Biixi Cabdi oo maanta aynu ka sheekaynayno in ay socdaan iyadoo laabkii shidaalku oo dhaqan galay oo muddo badan uu shaqaynayay ay socdaankii dawada iyo cuntadu Cabdirashiid Roblacadare Universal TV Berbera